siyaasi Saleebaan Ibraahin oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga waddan ee gobolka Togdheer ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku hambalyeeyay go'aankii uu ku joojiyay dhulka raasiga ee dekedda Berbera. Saleebaan Ibraahin oo arintaasi ka hadlayana waxa kamid ah hadaladiisii. Waxaan leeyahay xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Berbera Bob farabadan baa ka dhacay maantana dalka adiga madaxweyne ka ah shacabka reer Soomaaliland waxay eegayaan sida aad ka yeesho raasiga iyo dhulka free zone-ka ah ee diirarka lagu xidhay dhulkaas oo hadii aan wax laga qabanin Berbera ay noqon doonto bulaxaar mudane madaxweyne go'aankaas aad ku hakisay raasiga marka hore waan kugu hambalyeeynaa adiga iyo wasiirka hawlaha guudba laakiin waxa loo baahan yahay hakin kuma filna laakiin waxa loo baahan yahay in aad ficil ahaan u fuliso oo aad baabiiso dhulka nimanka badda aasaya ee dekedii Berbera xidhaya iyadoo hadii aan wax laga qaban Berbera ay aad iyo aad u xidhmi doonto oo aan dekedda aan la isticmaali doonin oo shacabka reer Soomaaliland wixii wax garad aad ay uga qeyliyeen ee xajala wadaniyadii ay ku jirto mudane madaxweyne 3 bilood ee soo socda waa lagu eegay arintaas aad ka yeesho ama waxaad noqon doontaa madaxweyne wadaniya oo arintaa wax ka qabta ama waxaad noqon doontaa dabadii kulmiyo markii horeba raacayeen bad adiguna cagta saari doonta ugu dambayn waxa aan ku soo gabagabeynayaa Berbera 3,000 oo sano dhul la bixin lahaa ayaa sanad gudihii lagu bixiyay ha ahaato free zone-ka ha ahaato raasiga dhulkaas oo aanay suurtagal aanay noqoteen in ay Berbera ka jirto waxa ka sii daran dhulkii xoolo daaqeenka ahaa iyaduna ilaa 60 kilomitir ama 70 kilomitir la baloodeeyay oo markii uu gaari waayo diyaarad lagu baloodeeyay dhulka raasiga ee dekedda Berbera ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa muran kaasi oo go'aankii lagu joojiyay uu damqay mas'uuliyiin tiro badan. Maxamed Jookar, telefishinka caalamiga Ariel TV, Burco.